bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarintenaga mudan ee dunida ciyaaraha tube kusoo dhawaada warkeena dunida. qodobo xiisa badan ayaa warkeena ku daawan doontaan. qodobada aan warkeena idinkugu haynana waxaa ka mid ah xidiga u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United Rashford ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay in heshiiska uu kordhiyo kooxdiisa Manchester United. Juan Manuel Mata maxaa ka jira wararka sheegaya inuu ku biiri doono City ama Liverpool. warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dhaawacii xalay toolo gaara xidiga caanka Harry Kane kaasoo laga baqayo inuu xilli ciyaareedkiisu soo gabagaboobay. Zinedine Zidane oo amray maamulka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inay soo gabagabeeyaan heshiiska Eden Hazard. maxaa ka jira wararka sheegaya Messi loo diiday inuu galo gudaha wadanka Ingiriiska iyo hal xidig oo kasoo haray xidigihii Manchester United ee ku wajahay Lionel Messi waqtigii ugu dambeysay ee kooxdan uu la ciyaaray. qodobadaas iyo kuwa kale warkeena ayaad ku maqli doontaan anigoo Cabduqaadir ayaa idin soo saaray meel kastoo aad joogtaan. waxaan idin leenahay kulanti wanaagsan. intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadayna subscribe saartid, riix like, sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada. aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube. kusoo dhawaada daawadayaal warkaasoo dhammaystiran. jirada Daily Mail ee wadanka Ingiriiska ayaa waxay ku waramaysaa weeryahanka da'da yar ee kooxda kubadda cagta Manchester United Marcus Rashford inuu diyaar u yahay in heshiiska uu kordhiyo kooxdiisa Manchester United. bogga rasmiga ee Daily Mirror ayaa waxay tilmaamaysaa 21 jirkan haatan diyaar u yahay in kooxda kubadda cagta Manchester heshiiska uu kordhiyo isla markaana uu iska diido kooxda kubadda cagta Bulgrana oo xilli ciyaareedkan si weyn u doondoonaysa, waxaana ay doonaysaa United inay ka ceshato kooxda wadanka reer Spain. Marcus Rashford ayaa isagu waxa uu kamid yahay xidigaha diirada u saaran kooxda kubadda cagta Bulgrana. waxaa laga yaabaa heshiis 5 sanadood inuu qalinka ugu duugo kooxda kubadda cagta Manchester United si albaabka ugu xirto dhammaan kooxaha doondoonaya. nadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa xidigan siin doonta mushahar isbuuci gaaraya in ka badan 300,000 oo euro sida la sheegay, waxaana la filayaa muddo 5 sanadood heshiis inuu qalinka ugu duugo iyadoona 80 milyan ka badan ay noqon doonto lacagahaasi muddada 5 sano soo aadan uu ku matalayo kooxda kubadda cagta ee Bulgrana. kan ayaa marka uu qalinka heshiiska ugu joogo ayaa waxaa la filayaa in uu ka saramaro xidiga waaweyn sida Romelu Lukaku, waxaana sidoo kale qarka u saarni doona xidiga caanka ee Alexis Sanchez kaasoo qaato ku dhawaad 500,000 oo giniga sterlinka. abaha Juan Manuel Mata ayaa isagu waxa uu ka hadlay wiilkiisa wararka sheegaya inuu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta Manchester United. ninkan kubadda abuuraha waa Shayatiin al-Xumar ayaa la tilmaamayay inuu ku biiri karo kooxaha Manchester City ama Liverpool midood marka la gaaro bisha June si rasmi ah loo furo suuqa kala iibsiga. ninkan oo la hadlayay idaacadda Cadena waa abaha dhalay Juan oo isagu waxa wax laga weydiiyay cusboonaysiinta xidiga Manchester. waxa uu yiri haatan waxaa jira bandhig ku aadan maamulka in xidigan ay u soo bandhigeen iyadoo sidoo kale uu jiro dalabyo dhowr ah naadiyo kala duwan oo Yurub ka dhisan iyagoo ay u soo gudbiyeen xidigan. ayuu yiri suurtagalnimada inuu wiilkayga u soo laabtay Spain waa wax dhici kara, laakiin haatan waqtiga munaasabka ma aha in laga hadlo suuqa kala iibsiga iyo wararkaasi, laakiin waxaan sugi doonaa go-aanka ugu dambeeya ee maamulka iyo go-aanka laga qaato. ayuu yiri Manchester City iyo Liverpool ka waran ayaa la yiri in wiilkaaga uu ku biro. waxa uu yiri doorashada noocaasi ma aha mid u wanaagsan Juan maxaa yeelay waa in ixtiraamna jamaahiirta kooxda kubadda cagta Manchester United. Mata oo ku faraxsan yahay maamulka sida ay ula tacaamuleen. ayuu yiri Mata uu ku jooga qalcadda Old Trafford ayaa waxa uu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedka ilaa iyo haatan ma jiro wax heshiisa oo loo kordhiyay, waxaana taasi ay keeni kartaa in xidigan uu isaga huleelo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. weeryahanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxa laga baqayaa xaalad adag inay soo food saarto kadib markii Harry Kane habeenkii xalay uu ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa ay ka hortageysay kooxda Manchester City kana tirsanaa lugta koowaad ee wareegga ruuc dhamaadka koobka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Citizens ayaa iyadoo waqtiga dhimashada laga dhaliyay goolkaas uu dhaliyay Son waxaana ahaa goolkii ugu horeeyay ee ka dhasha koobka UEFA Champions League garoonka White Hart Lane oo ah mid dib u dayactir lagu sameeyay isla markaana garoonka cusub ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. hore ciyaarta ay baryabar ay ahayd, laakiin qaybtii dambe gool
gool yimid ayaa sidaasi kooxda kubadda cagta Spurs ay ugu adkaatay, laakiin Tottenham Hotspur ayaa waxaa xidigeedu u dhaawacmay kadib markii kubadda ay ku kulmeen Fabian Delph laacibka kooxda kubadda cagta Citizenska, taasoo keentay xidigan inuu anqawga ka dhaawacmo. waxaa la arkay qolka labiskuna xidigan uu kasoo baxaya isagoo biro ku boodaya, taasoo muujinaysa xanuunka adag hayay iyo weliba dhaawaca halista. tani ayaa waxaa looga baqayaa dhammaan xilciyaareedkiisu Kane inuu soo gabagaboobay, islamarkaana ay dhici karto xidigan in sidii bishii Janaayo ee hore uu kusoo gabagaboobay xilciyaareedkiisa. dhaawaca noocan oo kale ayaa hore waxa uu ahaa mid xilciyaareedkiisu usoo gabagabeeyay xidigan, iyadoo haatan kulamo adag ay sugayaan kooxda kubadda cagta Spurs, waxaana u dagaalami doonta kaalintaas afraad oo Champions League iyadoo lagu soo baxo, iyo weliba sidoo kale waxay doonaysaa meel dheer inay ka gaarto koobka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. Zinedine Zidane ayaa waxaa lagu soo waramayaa maamulka naadiga Real Madrid inuu isagu go'aamiyey islamarkaana uu u sheegay in lasoo gabagabeeyo heshiiska Eden Hazard. jaradaas ee wadanka Spain ayaa lagu soo waramayaa in wadahadalada labada dhinac meel wanaagsan marayaan, islamarkaana naadiga kubadda cagta ee Real Madrid maalmaha soo aadan Chelsea ay kala heshiinayso oo si rasmi ah usoo gabagabeyn doonto. Zidane ayaa waxa uu doonayaa garabka reer Belgium, islamarkaana waxaa la filayaa xilciyaareedka dambe inuu xoojiyo safka weerarka kooxda kubadda cagta ee Los Blancos, islamarkaana bedel uu noqdo Cristiano Ronaldo oo xilciyaareedkii hore isaga tagay kooxdaasi kuna biiray kooxda kubadda cagta Juve. warbaahinta reer Spain ayaa ku waramaysa ninkan inuu ku kalifi doono qasnada kooxda kubadda cagta malaki lacag ka badan 100 milyan, iyadoona lagu soo waramayo Hazard in isagu heshiiskiisu u dhacayo 2020, walow naadiga kubadda cagta Chelsea ay diidi dooneen lacagaha 100 milyan. mas-uuliyiinta Real Madrid ayaa waxay iyagu rajo ka qabaan heshiiskan inay soo gabagabeeyaan, walow Chelsea iyadu ka ganaxa tahay suuqa kala iibsiga kadib markii FIFA ay ciqaab adag kusoo rogtay oo ku aadan qanuunka xidigaha daayarada. laacibkan ayaa waxa uu isagu ku guuleystay kooxda kubadda cagta Chelsea inuu ka caawiyo natiijooyin wanaagsan oo xilciyaareedkan isagoo goolal fara badan u dhaliyay, balse Blues ayaa ku guuleysatay in garabka Mareykanka ee Christian Pulisic ay kasoo qaadato kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund bishii Janaayo ee tagtay, taasoo ay doonayso in bedel uu noqdo xidiga Eden Hazard oo la filayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Los Blancos. naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa doonaysa caawa inay wajahdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaar ka dhici doonta garoonka Old Trafford. ciyaartaas waa mid si weyn loo wada sugayo, waxaanay noqon doontaa mid adag kana tirsan lugta koowaad ee wareega sideedamaadka koobka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. xidigaha kooxda kubadda cagta Blaugrana ayaa shalay toole gaaray magaalada Manchester si ay iyagu isu diyaariyaan kulanka caawa dhici doona. dadka qaar ayaa isweydiinaya qaabka Manchester ay ku joojin karto xidiga khatarta badan ee Lionel Andres Messi, mucjisada kubadda cagta dunida. waxaa jiray warar sheegaya xidiga caanka ee kooxda kubadda cagta Blaugrana Lionel Messi isagu loo diiday inuu gudaha u galo wadanka Ingiriiska, laakiin jirada The Sun ayaa waxay beenisay warkaasi, waxaana sheekadu ay ahayd arinta ayaa waxay ahayd in xidiga Lionel Messi inay u diiday mid kamid ah shaqaalaha madaarka magaalada Manchester in uu soo galo gudaha. tani ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ahayd mid kamid ah shaqaalaha ammaanka madaarka, waxaana la sheegay in taageero weyn u tahay kooxda Manchester United iyo xidigii hore ee Vartune, taasoo ballan qaaday inay joojin doonto Lionel Messi islamarkaana u ogolaan inuu gudaha u galo magaalada Manchester. Lionel ayaa qaab ciyaareed cajiiba ku jira, isagoona haatan xilciyaareedkan dhaliyay 43 gool, waxaana bandhig cajiiba uu isagu la sameynaya kooxda Blaugrana. obarihii hore kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa fikirkiisa ka dhibtay xidigaha Manchester ee caawa wajihi doona kooxda kubadda cagta Blaugrana, taasoo ciyaar xiiso badan iyadu ku yeelan doonta garoonka Old Traffordna ku wajihi doonta Lionel Messi iyo kooxdiisa. ninka Boortaqiiska ayaa rumaysan in caawa mucjiso ay ka sameyn karto Manchester. kooxda kubadda cagta Shayatiin al-Xumr ay wajihi doonta Blaugrana, waxa uu sheegay islamarkaana ugu digay xidigihiisii hore inay ka digtoonaadaan xidiga Lionel Andres Messi ciyaarta ka dhici doonta garoonka Old Trafford. Manchester United ayaa iyadu si cajiib iyadu uga soo gudubtay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee wadankaasi Faransa. obarihii hore Manchester oo isagu wareysi siinaya TV-ga Russia Today ayaa isagu wuxuu yiri Manchester United xilciyaareedkan waxay awoodeen inay kasoo adkaato Juventus, sidoo kale Paris Saint-Germain ay awoodeen, caawana maxaa diiday inay ka hortagaan oo ay ka adkaadaan kooxda kubadda cagta Blaugrana. wuxuu yiri Barcelona haatan wuxuu ku jirtaa waxyaabo badan oo waqti badan cajiiba, sidaa daraadeed waa in la ixtiraamaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Old Trafford, laakiin waxaan dhihi karaa waa in Messi laga digtoonaada islamarkaana xidigan uu isagu la ilaaliyaa. guud ahaan warkeena dunida ciyaaraha tube waa naga inta, anigoo Cabduqaadir Qeyska ee idin soo saaray intaan ku kulmi doono, sidaa iyo salaamun min Allahi calaykum.